السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Somalia Greens. maanta waxaan rabaa inaan ila qaybsado inta kor waxaa kasoo hadlay Shatavari. waxaan kasoo hadlay Shatavari waxtarkeeda. marka videogaas waxaan ku xasuustaa inaan dhahay inaan hal maalin kasoo hadli doono sida caadada loo xisaabinayo. marka maanta waxaan rabaa inaan ila hadlo sida caadada aad u xisaabsanaysid. example maanta waxaan ku jirnaa warqadaan aan soo qaatay. example maanta waxaan ku jirnaa 11 September waxa waaye 2021 11 November sorry 11 November aan ku jirnaa 2021 marka 11 November 2021 waa maanta. marka maanta hadduu maanta kugu dhacay caadadaada waxaa ka bilaabaysaa maanta kugu dhacay. example kana soo qaaday maanta bisha 11 November maanta kugu dhacay maanta bilaabaysaa xisaabta. soo waxaa xisaabinaysaa maanta kuwii ku tahay 11 kuwii ku tahay beri waxay ku ahaanaysaa labo. example waaya haddii maanta ay kugu dhacday beri labo sida ku fahantii sida caadada loo xisaabiyo because markaas sidaan videoga ugu soo hadlay 28 ay kugu dhacaysaa haddana 14 uu kaxaantaa galay. marka waxaa rabaa maanta sida anigu xisaabsada inaan ii tuso. marka maanta koow waaye beri laba ay noqonaysaa 12 markay bisho tahay beri dambe 3 waaye beri kaleeta 14 bisha markay tahay 4 ay tahay 5 shan ay tahay bisha 5 markay tahay 6 ay tahay 6 November 6 ay ahaanaysaa 7 November waxay tahay 7. okay marka markasta waxaa la rabaa 28 geedkan aan ku tusayaa intana 14 waxaa waaye ovulation waa markii uu kaxaanta waay oo yeedina malena. marka waa kaasa bisha markay 17 November tahay 7 ay noqotay ma 7 maalin markay noqotay xisaabta waa sii wadaysaa. of course markaas waa isdaahirinaysaa waxaas dhan waa qabaysanaysaa laakiin xisaabtaada waa sii wadanaysaa. markay 7 tahay 17 November 7 beri ku noqonay. okay waa qoraa 9 November 20 9 hadda waa xisaabiyey sida hadday noogu waday bisha markay 17 November tahay 7 beri ayaa noqonaysaa waqtigii isdaahirinaysa waxaas la gaara ama 6 beri ama 5 beri is depending gabdhaha iyo naagaha isku mid maahan. dad ilaa 7 mar maalintii 7 isdaahiriyaan oo ilaa 7 beri caadada ku qabaan gabdhana waxaa waaye ama naago ama 6 ama 5. kuwa qaarayaalkoodana waxaa waaye 4. marka dad kastaba isku mid maahan. marka 7 beri markay inta ku tahay isdiyaarisa xisaabta waa sii wadaysaa because waxaa rabtaa inaa ogaatid waxaa rabaa inaan ogaado sidaan u xisaabsanayni tusayaa inaa ogaado xilliga ay ku xaanta tahay. marka 7 markaa gasho isdiyaarisa xisaabtaada adiga waa wadanaysaa bisha 8 markay tahay 8 9 10 20 10 aad tahay 21 waay ugu xaanta ovulationka 14 lahaa laakiin ani gynecologteedu waxay ugu macnaysay inay 11 ku bilaabo karto ilaa 15 ku eg tahay. marka gabdhaha isku mid maahan qaara waxaa jira 16 17 weli ugu xaanta sii socoto oo uu ku yeeli kartid waa xilliga uur qaadaysid 11 ilaa 15. gabdhaha qaarkoodna waxaa 16 17 is depending gabar kasta isku mid maahan laakiin gynecologteedu waxay ugu macnaatay waxay dhahdeen ovulationka 11 ilaa 15 waay igu macnaysay.
markaan kiisaas u xisaabsadaa haddii ilaa 17 ama ilaa 18 waxaan qabtidna ogaaw markaas waxaa ku jirtaa xilliga uurka yeelanaysa ku jirtaa marka waa kana 21 waxay tahay 11 intii ovulation intuu bilaabanaya markuu 11 intuu ku bilaawdo waxaanta 12 13 14 way soconaysaa ilaa 15 ilaa 15 way soconay 16 17 haddaad tahay waxay ku noqonaysaa ilaa 27 bisha laga gaarayo marka waa kaasaa ani waxaantayda saasa u xisaabsadaa marka ovulation waxay ka bilaabanaysaa 11 ilaa waxa waaye 15 haddii gabdhaha qaarkoodan dadka isku wada mid maahan qaar ilaa 17 ama 18 oo weli ovulation ku jiraan macnaha waxay ku jiraan xilliga uurka yeelanaya haddaa ilmo ilaahay ku siiyey ilmaha ilaahay ahaayo ilaahay ku dhaafo aadan rabin inaa cunug kala dhalin waxaa sameyn kartaa markaa waxaanta bilaawdid 11 ilaa 15 xilligaas uurka leedahay ku jirtid iska ilaali inaadan nin u tagin ama inaan ninkaada u tagin haddaa rabin inaa uur yeelid haddii aa rabtidna waa xilligaa gaadi kartid 11 ilaa 15 dadka qaarkood ilaa 16 17 18 waaye dadkan aan isku mid maahan waa kusoo celinayaa laakiin aniga sidaan aan xisaabsadaa 11 waa ka bilaabaa ilaa 15 ayaan ku ekeysiyaa ani saas aan xisaabsadaa waxaa jira hadda aabayaalo oo xataa lagu ogaado marka maalinta caadad kugu dhacay muhiim waaye kabacdi waxaan markaa ka baxda 17 18 19 20 haddana caadada kusoo noqonayso way ku imaanaysaa haddii meeshii ovulation iyo waxba ka dhicin oo aadan uur qaadin bas wixii haddana isnadiifinayo caadadii 18 haddana caadadii kusoo noqonayso igraale hada 18 haddana caadadii kusoo noqonayso markaan saasaa u xisaabiyaa hadda aabayaal jira telefoonka waxaa leedahay ovulation ama cycle uu ku sheegaa xisaabta maalintii kugu dhacday ayaa qoranaysaa ka bilaabaysaa ko kabacdi way ku sheegaysaa maalinta ovulation ku jirtid iyo goorta ovulation ka bilowday marka waa kaasaa way fiican tahay inaad barid sida caadadaada xisaabsasid ana marka gynecologteeda ay soo bartay inay caadadeysaan sidaan loo xisaabinayo gynecologteeda ay sheegtay oo ay soo bartay wax badan ayaan ka faa'iiday because waan sugahay waa waxa aadana ku fahmi kartid waxaaneyti hadhow haddii caada qalqal qabtid ama markaa problem qabtid waxaa ku fahmi kartaa markuu 18 ku imaan uu kaa soo daa marka barkiisu way soo daadaa 18 ama 19 it's okay hadduu 19 ku imaan laakiin haddii aad kaaga soo daado oo 2 bari 5 bari 3 bari 4 bari markaas saas tahay markaas waxaa waa cilad caafimaad waaye markaas waxaa waa inaad dhakhtarkaada aadid laakiin muhiim waa marka hore inaad isbaratid adiga jirkaada cyclekaada baratid annaga haddaan naaganahay cycleyaal badanaa qabnaa caadaan qabnaa 14 lama caado dadku u bilowdaa dad 16 u bilowdaan aniga 16 u bilaabatay marka gabdhana waxaa jira oo ayagoo 14 sano bilaabanayso ilaa oo haddana menopause oo qofka ka gaarayo uu 50 ama 49 ama 50 ka gaarayo kole dadka menopause waxaa la 50 waa la marka naaga xiliyaalkaasaa qabnaa soo caadada maadaama ay tahay wax nolosheena ka mid ah muhiim waaye inaa baratid inaa caadadaada xisaabsatid aad ogaatid xilligaa uur qaadaysi haddii kaleeta markaas waa kala ogaa kartaa haddii jaa beebi badan qabtid oo yariis oo mid kale haddana tabar u haynin way ku anfacaysaa inaa caadadaada xisaabsatid sidaa ogaatid xilliyahaasaydi inaad iska ilaali kartid haddii aad rabin inaad uur qaadan haddii aad rabtidna inaa xilligaas ka faa'iidaysan kartid marka waa kaasaa maadaama maanta halaas ayaan ila qaybsanahay markastana gynecologta in loo tago way fiican tahay sanadkii hal mar gynecologtaada u tag check up soo sameey isoo baar isoo fiiri caafimaadka ceeb maahan haddana wadamadan aan joogno caafimaad ayaan haysanaa alxamdulilah dhakhaatiir fiican ayaa joogaa marka laga faa'iidaysto waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu